السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيارتكم حنا kanaalkeena barashada shaybaadhka soo dhawaada. Maanta waxaan soo qaadanaa casharkeena ugu dambeeyay ee chemical examination-ka urine-ta. Casharkeena maanta ugu dambeeyay wuxuu noqonayaa nitrate. Waxaan isweydiin doonaa saddex qodob. Waa maxay nitrate? Xagee laga helaa? Iyo qofka haddii ay nitrate jirkiisa soo gasho calaamadaha uu muujisto. Ugu horreyn nitrate waxaa jira laba nitrate oo midna NO3 la yiraahdo midna NO2. Marka nitrate waa enzyme caadi oo jirka iskaga jira ama waa waliba badanka waxa laga helaa cuntooyinka sida khudradda cagaaran waana xaalad normal ah oo urine-ta ayaa la soo raaciyaa wax dhibaato ana ma keento oo waa xaalad normal oo caadi ah jirkana lagama dareemo badana ama marka urine-ta la soo raacinayo. Haddaba waxaa jirta nitrate NO3 da ayaa waxa ku dhaca waxa la bedelayaa marka bacteria waliba qaybo gram negative bacteria sida E. coli ay ka mid tahay ayaa waxay dhacdaa in ay soo gasho urinary tract ama kaadi haysta kadibna nitrate NO3 ee la soo raaciyay urine-ta ayaa waxay u bedeshaa NO2 deetana nitrate bay noqotaa. Nitrate-daasi waxay sameynaysaa in ay waxay u saamaxaysaa inay bakteeriyadii meesha ku noolaato caabuqna ay ku keento. Sidaa awgeed nitrate caadiga ee jirka ku jirta NO3 waa normal laakiin haddii la bedelo oo nitrate loo bedelo oo NO2 ay loo bedelo ay bakteeriyada soo gashay urinary tract infection ama UTI-ga kaadi haysta soo gashay loo bedelay hadhow caabuq ay keeni kartaa. Nitrate ay bedeshina waxay u sahlaysaa inay ku noolaato oo ay meesha ku fido. Saas ay tahay waxaan leenahay nitrate waa xaalad normal oo jirka ku jirta laakiin markii ay bacteria soo gasho kaadi haysta ayay u bedeshaa nitrate NO2 taasoo sababaysa in qofkii UTI uu qaado oo urinary tract infection ku dhaco. Haddaba halkee baa laga helaa? Bacteriadan UTI waxay ku dhacdaa badanka urinary tract infection-ka ilaa iyo mararka qaar dhuumaha kaadi haysta ilaa kelida way gaari kartaa haddii ay qofka ku fido. Kaadida ayaana laga baaraa wax lagu ogaadaa dhebistiika urine-ta lagu baaro waa lagu ogaan karaa. Badankana ur bay samaysaa ur yar siifada ama aad qofka uu dareemayo oo kale. Haddii ay kaadida xoogay xejisto oo ama xoogay ay ku jirto kaadi haysta oo qofka uu tusaalaan iyadoo kaadida qabata ama isagoo travel ku jira ama meel kaleba aan hore urination u samayn iyana way uu qofku dareemi karaa markuu urination sameeyo. Nitrate mararka qaar haddii tusaalaan cuntada aad ku jirto aad cunto ay fara badan tahay iyadoo normal la soo raacinayaa urine-ta wax calaamado uu qofku dareemayaana ma jirto. Waxa kaloo jirta qaybtaas waa baaritaankeeda oo iyo waxyaabaha lagu ogaado. Waxa jira iyana calaamado uu qofku muujisanayo. Badanaa saddex qodob ayaa ugu muhiimsan calaamado uu muujisanayo. Number 1 waxa ka mid ah in urine-tu gubto oo tusaalaan urine markay ku soo dhacdo urethra uu pain badan dareemayo oo qodob koowaad maadaama oo meesha bacteria ku dhalatay gidaaradii urethra oo dhan ay dhaawacday urine-tuna acid-eedu ay fara badan tahay oo ilaa acid urine ku jirta 5 ilaa meelahaas lagu qiyaasaa badanka ilaa 6 marka qofkii uu pain badan dareemo. Qodobka labaad waxa weeye inuu frequency of urine uu sameeyo oo tusaalaan urine marka ku soo dhacdaba uu markiiba dareemo uu ku cararo soo urination u sameeyo musqusha kale. Qodobka saddexaad ugu dambeeya waxa weeye inuu intan hoose back lower kan hoose ilaa dhabarka uu back pain badan ka dareemo haddii ay ku fido ilaa kaliya ay gaadho. Marka baaritaankeeduna badanka waa sidaa. Sidoo kale in urine-tii markii la baarayo microscope-ka la saaro bacteria badan lagu arko iyaduna baaritaanadeeda ka mid tahay. Marka nitrate badanaa wax way iska riir oo wax badanaa sida waxyaabahan kale ee soo noqnoqda maaha waanay
tusaale boqolka qof aad baa dhex laga yaabaa inaad laba saddex aad ka hesho oo wax saa usii badan maaha xagga percentage-ka dadka laga heli karo. casharkeenii chemical examination-ka ee noo soo socday dhowr iyo 10 cashar baan filaya inay soo qaadanay. insha allah maanta halkaas inoogu soo gabagaboobay. waxa xiga aynu qaadanaynaa waa qaybtii microscope-ka insha allah oo aynu cashar u dul istaagi doono inagoo practicalkii iyo sawiraanteedana aynu soo insha allah aan idinla wadaagi doono. idinkuna subscribe-tii like-tii share-ta nala moogaano insha allah. wixii ka sabana waad nala soo wadaagi kartaan, commentiga ayaad noogu reebi kartaan. aad baad mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.